waxaan halkan ku soo booqanay qoyskan oo laba caruur ay ka xanuunsanayaan waxa weyn la xaruurayo hooyadooda xaamila oo ay hayntooduna aad u yartay hooygooduna uu ka yahay labada caruurba baaralees ay noqdeen iyagoo soconaya ay xaafadda soo degeen dabeetna waxa ku dhacay xanuun soo roorinaya caruurta marka dambana hadalka ku xirmaaya dabeedna waxay noqonayaan curyaamin inanku kursigaas uu ku fadhiyayo moogtay waa la qaadaa waa la suuliga waa la geeyaa waa laga soo qaadaa maamaduna ma qaadi karto waa ilmaheedii curad iminkana inantii labaad baa caguhu kala jeesteen oo xanuunkii ku soo siyaaday marka muslimiinta waxay ka codsanayaan dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee sadaqada la baxa waxay ka codsanayaan inay caruurta la soo caawiyaan si ay u helaan dhakhtar oo ay dhakhtar u geeyaan dhakhtarkuna wuxuu u sheegay mid ay la geeyo islaamku u geeyo waxa uu u sheegay inaan dalka waxba laga qaban karin marka waxay doonayaan dadka sadaqada la baxa ee xankuguud maalkooda sadaqadaysta in awlaadda yaryarkan waxba galabsan inay soo caawiyaan si dhakhtar dibadda loogu qaado oo caruurta xoogoodii iyo hadalkoodii ugu soo barakato waxaynu saaka la joognaa hooyo Sahra oo runtii hooyo ku dhibaataysan ubad xanuun ilaahay u keenay caruur caafimaad qabay oo cagahooda ku soconayay oo caafimaadkooda u dhameystirnaa laakiin gadaal laga helay oo markii dambe qof walba marka hore cagaha la soo roorinaya kadibna hadalka lagu dhajinayaa waa sidaas arkaysan ilmaha waynu sidnaa oo marba waa la qaadayaa oo ma kici karo ma fadhiisan karo gacantiisa waxba kuma cuni karo inantiina waa taas oo inantii ku xigtay iyaduna waa la mid imanka waliyadu way fadhiisan kartaa laakiin cagihii baanay ka socon karaynin ilaahay baa xanuunka keena waana la isku eegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray inaynu isu naxariisano waxaynu aragnaa hooyada murugada ka muuqata ee xitaa ay awoodi weyday inay warbixinta ubadkeeda bixiso iyadoo aad looga akhriyo karo murugada haysata jirkeeda iyo wajigeedaba oo hooyo xaamila sida ay imanka noo sheegeen jaarku xanuun bay leedahay wadhi kar bay qabtaa caruurta yaryar iswada leeg bay haysataa ma kicin karto ma qaadi karto maxay iday daryeelkooda ma awoodo hooygoodu waa qolkaas aynu arkayno waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryayaa isaga ayaa gacantiisa caafimaad ku jiraay inuu ilaahay u caafiyo ubadka dadka muslimiintaana waxaanu ka codsanaynaa meel kastay joogaanba in ay soo caawiyaan oo ay soo taakuleeyaan oo ay hooyada u soo naxariistaan dhibta haysataa si ubadkeedaasi caafimaadkii sida la sheegay dhakhaatiir loo geeyay oo Hargeysa mar dad muslimiin kaxeeyeen waxa la sheegay in wax laga qaban karo xanuunkooda oo xanuunkooda dalka dibadiisa hadii la geeyo ay cagahoodii caafimaadkoodii u soo noqon karo marka walaalayaal wixii aynu haysano aynu aakhiro ula baxno xasanaad fara badan baynu ku helaynaaye ubadka yaryar aynu soo caawino hadii ilaahay ka dhigo assalaamu calaykum bismillahir rahmaanir rahiim bilaa min shaytaan rajiim Soomaalida sharaftii akhlaaqda waxaan ka codsanayaa in awlaadda wixii dhakhtar la ila tari karo la ila taro awlaadda saanin badan ku dhibaataysana islaamka ilaahay waxaan ka codsanaya wixii wax la ila tari karo in la ila taro caruurtii imsa xanuunsanaysa muddo 8 sano ah imsa xanuunsanaya caruurta labada inanka yeelanta marka waxaad u baahan tahay dhakhaatiir loo geeyo dalkana waxa lagu yiri waxba laga qaban karo inanka kolba والله إسلام هم حتى أقسم سامي. وحن كعسن كره يوحي دكتور الله يقلق من كره الله يرقبته. أنا ولا المسلمين تيوم مؤمنين تبوا شيء إن سبحانه وتعالى عرضها يرير حنوسنيان ما حيهتي مدة درو 6 سنة يمكن حنوسنيان إن هو يقودنا دويدين كاركيو وحنقول هو وحسوا ما حيهتي إن هو وانو يمكن نسني وحوروريا ولي وحبا نفله ما هينو وحيرو ما نو يمكن ولي وحبا نود قدي سيني بانو هينا marka maxay tahay dhakhtar bay u baahan yihiin guri bay u baahan yihiin caawimo kale u baahan yihiin aabahood ma shaqeeyo iyadu waxaan ku wari waa 6 caruura iyo iyadoo xaamila imika iyo ninkan waxba haysan marka anigu waxaan ahay caruurteedadood maxay tahay sidaasaan ilaahay subxaanahu wa tacaala muuminiinta iyo muslimiinta iyo muxsiniinta intaba waxaanu ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo naxariistaan oo waxaan ku wari caruurteeday dibad u baahan tahay in loogu diro hadii guri la tahay gurigana laga caawiyo waxaan ku wari caruurta haday tahay in laga caawiyo saasaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ku wari subxaanahu wa tacaala dadku waxaan ku wari in badan oo xanuunsanaysa way jirtaa haddana anaku intaas oo dhan maanaan hadlin maanta laakiin waxaan ku wari xanuunkii caruurtii ku sibatay saasaan u hadalay marka waxaan doonaynaa in la caawiyo caruurta dibadna loogu diro oo baydna loogu dhiso oo waxaan ku wari in laga caawiyo yaanu baryeynaa dadka muxsiniinta iyo dadka islaamka iyo dadka cid kastaba waan u baahanay ilaahay subxaanahu wa tacaala assalaamu calaykum wa rahmatullaahi اللهم صل على محمد سيدنا محمد
waxaan muslimiinta ilaahay ka codsanaynaa carruurta ay aragtaan sida inantuba idinku sheegtay in la soo caawiyo ayaan dadweynaha ka codsanaynaa sida 8 sano inantuba idin sheegtay ay ahaayeen hooyadoodna aabahoodna ma shaqeeyo hooyadoodna taa haysa maxaa sheegay wax fiican hooy fiican ma haystaan hooygooduna adiga harka saasan muslimiinta iyo dadweynaha ka codsanaynaa ilaahay wax soo caawiyo in soo caawiyaan maxaa sheegay wax soo taran wixii soo tar karaan ku dhaamaan dhakhtarka Soomaaliland waa la wada mariyay dhakhtarkooda waxba uu ka qaban waayay maxaa sheegay in dhakhtar dabadeed loo diro ayaan awood weynay marka in maxaa sheegay dadweynaha ayaan ka codsanaynaa dadweynaha inay soo caawiyaan ciyaalka yar bilcista dadweynaha iyo muslimiintaba in carruurta yar ee tabaalada ilaahay keenay wixii ilaahay keenay waxba laga yahay caawiyaan oo inaga noo caawiyaan carruurta jaarkaanu nahay waanu la qaadnaa waanu la dhignaa waanu la maydhnaa waanu la haynaa dee waxaan ku codsanaynaa soo caawiyo Rahmaan Rahiim in badan baan reerka jaar ahayn in badan baan jaar ahayn carruurta inaan ku sago ilaa 2 sano jiray oo xoog oo saa u durduraya la helay waxa weeyaan 10 jir inantuna iyadoo waxaan ku wax yar yadana jirtay baa la helay oo soconaysa awood waa loo waayay oo ya xaamilaaba haysata inaan ku camal ma haya carruurta dhalay dhiig karbayadu qabtaa wax jaarkeedii baanu nahay carruurtaas waxay u baahan tahay caawimo dadka muslimka ah bay u baahan tahay waxa la haleeyo wixii islaam ah bay u baahan tahay marka wixii islaam ah u soo caawiyo reerka bismillaahi raxmaan raxiim carruurta xanuunsanaysa waxaan hay'adadood walaalkay baa dhalay maxay tahay imkanaana bashaqadoodan iyo guriga lagu dhisay waxaan gacanta ku hayaa marka waxaan lambarkaygu waa 4219890 maya barakaad baan leeyahay telesoon baan leeyahay lambarkaas la igala soo xiriiraya waa 4219890